حاجي معقول عمانتي waxa ay xaalad cabsi soo wajahday lamaanta laacibka jiimka ku xajiimooday Cabdalla Buurane kadib markii ay ka wareesheen boorsooyinka ay kala qaateen xidigihii qoob ciyaareedka wadaysan jireen ee Hudaamuun iyo Sharmaake miisaanka noloshiyo midigtaydi baa tahay inkastoo bari u dambeeyay soo badanayeen lamaanyaal jacayl booyina baraha bulshada ku soo bandhigaya ayaa haddana waxa barbar socday kuwa sifa la yaab leh boorsooyinka uu kala qaatay kadibna ugu warbixiyay taageerayaashooda kulamadii adkaa ee saqda dhexe ay sida hoose u baasan jireen qalbi nuurahida allayga maqaada qalbi nuurahida haddaba intaana kula wadaagin warbixintan kooban fadlan la dhac muuqaalkan si uu gaaro saaxiibo badan adigoo falow dhahanaya page-kiga shaacir show si ay ku soo gaaraan warbixinada iyo barnaamijyada dambe waxa uu shaki weyn soo kala dhex galay lamaanihii socod baradka ah ee jacaylkoodu sida weyn u gelgelay baraha bulshada ee reer Buurane tan iyo markii ay kaamiradaha qarsoon qabteen tirishada caanka ee Hudaamuun oo kale ku xirada tababarka waxaana xaalad cabsi soo wajahday lamaanta laacibka miisaanka culus ee ku xajiimooda jiimka dale ilaa intee si jeclaan doonto ku jecla ilaa xad waxaan u maleynayaa inaan qalbiga ku dhex daro xidigtan sida fudud uga soo dhex muuqatay kulamadii adkaa ee gaalkacya derbi ayaa cabsi weyn ka muujisay xilli ciyaareedkeeda cusub ee sanadkan waxaana baqdi weyn ka qabtaa in bedel loo taago kulamada soo socda ama la dhigo kursiga kaydka oo ay ka soo kabsan weyso waxaana markan ka fakaraysaa sidii uu xajisan lahayd booskeeda koowaad ee kooxda وحي قبض وكبرها ارحم بوجع كان مالها kuwani waxay ahaayeen lamaanayaal daayar oo aad isugu faraxsan kuwa baraha bulshada ku soo bandhigi jiray jacaylkooda kaasoo sida ay sheegeen ka soo bilaamay tan iyo xilligoodii waxbarashada kolka ay buugaagta ku wada ridan jireen hal boorso oo kaliya soo bandhigitaanka jacaylkooda ee baraha bulshada waxaa barbar socday bixinta casharo u badan qoobka ciyaar oo dadka qaar aysan jeclaysan jirin balse barbaarta qaar ee bartooda ku xiran ay wax badan ka baran jireen waana sababta keentay in kala tagal macashaqintan ay saameyn weyn ku yeelato lamaanayaasha kale ee baraha bulshada ku soo bandhigi jiray jacaylka booyinta inkastoo macashaqintan isla soo jabay jacaylkooda burbura lagu qiimeeyay baraanka haddana bariyihii u dambeeyay waxaa baraha bulshada Soomaalida sida weynka u isticmaasho ku soo badanayay qoysas burburay oo bulshada u soo bandhigay gogashii iyo garoomadii ay Browniga ku ciyaari jireen tirada goolashii ay iska dhaliyeen dhaawacyadii soo kala gaareen intii ciyaartu ay socotay kaararkii ganaaxa ee la kala qaatay iyo cid guushu raacday kulamadii adkaa ay sida wada jirka u safteen isku soo wada duub maxay sidan u soo laalaabataa ma dhalinyarada Soomaalida ayaa jacaylka qalad ka fahmay mase social media ayaa maxnad gooni wata maxaad si adigu ka aaminsan tahay jacaylka baraha bulshada lagu soo bandhigo ee soo badanaya haddii aynaan selin ama si aynaan heshin naftaydan haleynaya